Yasra Yaasiin oo baraha bulshada Soomaalida looga yaqaan magaca Genyada Madow ayaa sheegtay inay u istaagtay arrintan markay aragtay dumarkii Soomaalida oo midabkoodii bedelay. waxa keenay marka arkay gabdhihii iyo isla rogay gabdhihii oo dhamaantood iscadeeyay marka taa bedelkeeda ani waxaan ku fikiray in bal sidii madowga loogu faan lahaa inaan ku fikiro. Genyada Madow ayaa tilmaamtay inay ka gaartay guulo horseeday in bulshada ay dareemaan dhibaatada ka dhalan karta qofka oo midabkiisa bedela laguna amaanay arrintaasi. waxyaabaha muuqda oo social media ku soo batay waxa kamid ah gabdhaha midmadow awal sawiradooda Facebook uma isticmaali jirin waxay saarsan jireen calamo geedo waxyaabo kale hadda gabar kasta oo madow sawirkeeda way soo saarsataa iyadoo midab chocolate iyo madow ku faanaysa ma sha Allah sida midabkan diamondka u doorteen Allah idin dhowro baayooyin kalsoonida aad midabkan ku qabtaan waa mid cajiib ah. habla kale ayaa ku soo biiray Yasro markii ay muddo waday dadaalkeeda. gabadha ma sha Allah oo hambalyeynaya saaxiibaday waxay sameysay arrin geesinimo leh oo bulshada barar buu istaagtay inay social media ay soo dhigto oo nafta galiyay ayati qorxii nafta galiyay Yasra iyo saaxiibadeed ayaa u isticmaala baraha bulshada hal ku dhigiyo tilmaamaya in dumarka Soomaalida ay ku kalsoonaadaan midabkooda dabiiciga ah iyadoo sidoo kalena soo qaadata sawirro muujinaya dadyow badan oo dunida ah isla markaana ku faana midabkooda dabiiciga. waxa jira hashtagyo badan hashtag waxa kamid ah abay haysnaafeen isnaashnash waxa kamid oo kale macsaro mugdiyos gudcuros marka sawir soo dhigo ama sawir gabar madow aan ku dhiirigelinayo hoos waxaan kaga qorayay madowgu waa qurux iyo black beauty sida gabdhaha Soomaaliyeed ay yani u tusay in madowgu uu yahay wax qurux badan oo dadka qaarkood yani abaalmarin lagu siinayo baa waxa u soo qaadan jiray gabdhaha Afrikaanka South Sudanese Kenyaanka Nigerianka. Genyada Madow ayaa sheegtay intii ay waday hawshan ay la kulantay caqabado intooda badan uga imaanayay dad diidan ololaheeda. runtii waxa ka yimaaday huruf badan iyo dagaal badan iyo commentiyo badan oo negative ah inay dhahaan ma aragtay tusaale ahaan qaar baa waxay ugu dhahayeen way kari weyday markay kari weyday bay ma aragtay bay waxay bilowday inay ma aragtay ka soo horseesato diyaanada nimankii baa si fiican noogu taageeray oo hadda ogaaday in gabar caafimaad qabta ay mustaqbal la wadaagaan inay muhiim tahay. iyadoo waayadan dambe ay soo badanayeen dumarka iscadeeya ayaa in badan arrintaasi waxaa ka digay bahda caafimaadka oo tilmaamaya saameynta ay ku yeelan karto arrimahaasi caafimaadka qofka. haragii gabadha tan ayaa wuxuu noqonayaa harag biyihii ka tageen oo maxay noqonaysaa in dhalinyaro khafiifa haddii nabar gaaro aan buskoonayn sahlna u ah inay infection qaado oo halkaa dhibaatooyin kaleeto ka yimaadaan. waxaad fiirsaan gabdho badan oo hadda beledka joogo accident iyagu ma raadsanayaan accident ku dhacay korkooda fiirshisuu noqday si fiican baad u arkaysaan waxaadna u garowsanaysaan. inkastoo ay jiraan dad badan oo sida Yasro nacab in midabka dabiiciga la bedelo haddana waxaa jira dad weli iscadeeya oo aan ku kalsoonayn midabkooda.